saddex hoobiye ayaa la xaqiijiyay inay ku soo dhacday xaafadan Fiyooraha oo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan waxaa hoobiyaashaasi ay sababeen khasaare dhimasho iyo dhaawac saddex qof ayaa la xaqiijiyay inuu dhaawac ka soo gaaray halka haweenay nuujinaysay ilmo yar oo ay dhashayna ay ku geeriyootay dadka deegaanka ayaa sheegay inay nugul u yihiin had iyo jeer hoobiyaasha lagu soo gano ama bartilmaameedku waa madaxtooyada sida ay sheegeen maadaama ay daris leeyihiin madaxtooyada iyo xarumo kale oo dawladeed oo muhiim ah mid ka mid ah ehelada dadka waxyeelada uu ka soo gaaray hoobiyahan ayaan la hadalnay wuxuuna sharaxayaa sida ay wax u dhaceen geedi ahmed aleera magay ariito gabadhan ta fadhiidi meeshan yaalsha iyo gabadha kale guriga la deganba meeshana fadhiyaan wan halkana fadhiin meeshana qaraha geedaha gobsaday macnaha gabadhan seegaha ka haasleena galin gabadha garbasaarkii lahaaytay macnaha ka hiridi dhacdadaas dheedi alxamdulillah ilaahayna aan nahareys taasa uga ku anon si toos ma hoobiya ugu soo dhacin tamsa hoobiyaha geedaha sa ku dhacay fariir lay dhowye ehelanahay afayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicaziis Xildhibaan ayaa u sheegay telefishinka Universal oo halkan yimid in dawladdu ay baaritaan degdeg ku sameynayso arintani isla markaasna aan loo dul qaadan karin in meel kamid ah Muqdisho laga soo gano hoobiye inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan dhex taaganahay mid kamid ah guriyihii ay ku soo dhaceen saacadu markii ay ahayd 2:23 daqiiqo weerarada kooxaha xalaaleystay dhiigga shacbiga Soomaaliyeed ay ku beegsanayaan waxaan dul taaganahay oo soo booqanay mid kamid ah guryihii ay ku soo dhaceen hubkii ay adeegsadeen maanta u adeegsadeen weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen markii hore guud ahaan waxay ahaayeen 5 qof oo barta aan taaganahay ilmaha ugu yar ee arkayseen hooyadood ay ku geeriyootay 4 kalena ay ku dhaawacmeen wax yar meel noo jirta marka waxaan tacsi u diray in qoysaskii iyo eheladii iyo qaraabadii gabadha ay ka geeriyootay wada arkayseen kolley isla markiiba goobta waxa soo gaaray dhammaan qaybaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay ka kooban yihiin gaar ahaan ciidamada booliiska oo markiiba gurmadkii ugu horeeyay u fidiyay dhaawacyadii meesha aan ugu imaanay marka gabadha waxaan idin xaqiijinaynaa in ay geeriyootay eebahay naxariistii jannaha siiyo Munasar Maxamed Cabdi Universal TV Muqdisho